tii dadka wuu dhaafay waa in gubatay Hargeysa caawa iyo in lala carray gacmaha lagu sido qaxootinimo ka dhacday dawadayaal suuqa weyn ee magaalada Hargeysa waxaa qabsaday dabkaasi oo ka kacay haddaba shacbiga ayaa ka guuraya oo ka guranaya alaabtoodii inta ay u badqabaan ee soo sukaysa ee saaran laamida dhammaanba suuqa ayaa intiisa badan gubtay kaasi oo hadda la daadguraynaya oo ciidamada kala duwan ee Somaliland la soo dhoobay goobta si ay u caawiyaan dadka oo ay meesha uga soo saaraan angeli kari weynay sariibadii dhismihii sariibadii waahayne originalka ahayd koonfurteeda oo xagga dooxa xiga halku imika marayaana bari wuxuu xigaa masaajidkii Cabdiraxmaan Garyare ama Masjid Nuur mise jaamicii buu ku baxaya iyo sidii sandarka dabadiisa galbeedna wuxuu soo maraya Daar Salaam iyo Talisom luuqi ka dambeeyay wadadan waqooyi number 1ka sekada dhismaha uunba ka haysa ee dabku dusha uga soo talaabay koonfurna wuxuu marayaa Masjidun Nakhiil inda deero uu dhaafay bakhaaradiisii in allaaliye intii wadooyin halkaasi ahayd wixii alaabta lay meesha mashaqaa ka dhacay dabka waa lagu shufeelay xaaladdu imika markastaba wuu sii kordhaya dabkaasi xal lagu baqtiin kara ilaahay roob shuba mooyaane halka ma yaalo oo kama muuqdo awoodii dawladda wuu dhaafay tii dadka wuu dhaafay waa in gubatay Hargeysa caawa iyo in lala carray gacmaha lagu sido qaxootinimo ka dhacday anigu intii aan inta leekaa ama aan garaadsanayay qasaaraha caawa Hargeysa ka dhacay waxaan ku qiyaas garan maayo waxaan ku qiyaasi karaa 94 November dagaalkii sugay Hargeysa ka bilaabmay ayuu maanta dabkaasi la mid yahay sababtuna wax kale ma aha dadka suuqa degani iyaga iska xidhay wadooyinkii eed ugu weyn iyaga leh dawladna lama eedayn karo cid kale lama eedayn karo haday dabdamiskii tahay iyo haday dawladii dhexe gurmanaysa tahay iyo haday dawladii hoose tahay meel allaaliye meel gargaar iyo gurmad loo mariyo waa la waayay suuqaasi wuxuu leeyahay ugu yaraan dhowr iyo 10 wado oo bari iyo galbeed waqooyi iyo koonfur intaba u socda wixii way wada xidhan yihiin way degeen iyaga ku ganacsaday marka xaaladda caawa Hargeysa ka taagani waa mid lagu caydhoobay ilaahay umada hawsalaha gargaariyo waxa kale jirta albaabadii baa wada gubanayay imika suuqu wuxuu lahaa albaaba laga soo galo ama laga baxo khadimadaasi maadaama ay gubanayaan dadkii ku dhex jiray meel ay ka baxaan ma jirto inta dhismayaasha ku jirta mooyaane